wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa maanta Hargeysa ku soo bandhigtay qalabka maamulka hirarka isgaarsiinta oo markii ugu horeysay la keenay Somaliland. Qalabkan ayaa kala xadeyn doona hirarka iyo waliba in lagu socdo saameynta taawarada. Munaasabad loo qabtay oo ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdilaahi Suufi iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Engineer Ali Daahir. waxa maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan ku soo daahfurno himilayn dheer aan wasaaradda gudaheega hawl badan naga gashay oo ah in la hirgeliyo qaab loo maamulo khayraadka dabiiciga ah oo ah hirarka isgaarsiinta ama biligta wax la yiraahdo ama signalka. waa nidaam 3 waddan oo naga horeeyay Afrika ay hore ugu shaqeynayeen marka runtii inaynu qayb ka noqono maamulka khayraadka Afrika ay maamulaysa inaguna aynu qayb ka noqono marka in la helo qalabkii lagu maamulayay kadib markii ay wasaaraddu suurta gashay in miisaaniyadda qaranka ay ka soo iibiso ay diyaariso xeer nidaamiyihii lagu maamulayay ay raacsan yihiin halbeegya iyo procedures lagu maamulayo mahad ilaahay. qaybta kale anaga aad noogu muhiimkiina waxa weeye waa biligta ama signalka ka soo baxaya towerka inaanu la socono powerka mar walba. in badan ba ay bulshadu ka cabatay TV-yada laga hadlaa toddobaadkii u dambeeyay laga hadlayay tower kala duwan maanta dabadeed qof intuba ayers ka soo istaago banaan yiraahdo waxaas jira dhici mayso halka laga soo cawdo oo qaadayna qalabkaan geenayna oo cabirayna haddii cid dalay markaa ay dhaafto xadkii loogu talagalay talaaba laga qaaday haddii qofka eedaynaya aanu cadeyno hayna isaga talaaba laga qaadaya waxa aynu la iska eedaynay maanta dabadeed iman mayso. waa soo dhaweynayna dhammaan madaxda sharafta leh qaranka ee maanta u soo horeyna ka qayb galaan wasaaradda kala qayb galaan daahfurka barnaamijkan. taasina waxay ku tusaysaa qiimeynta ka soo qaybgalkiinu qiimeynta aynu qaran ahaan qiimeynayno technology iyo horumarkeeda. xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland oo munaasabada ka hadlay wasaaradda isgaarsiinta ku bogaadiyay in qalabkan ay wadanka keentay. waxaan aad ugu hambaleynayaa bandhiga maanta ay halkan ku soo bandhigeen qalabkan aynu aad ugu baahnayn. wasaaraddan wasaarad cusub ay ahayd oo dhismihii dawladda xukuumadda imika joogta lagu soo daray. halka imika maraysa markaaynu eegno xawle aad u wanaagsan bay ku socotaa. wasaaradda iyo qarankaba waan ku hambaleynayaa waxaan rajeynayaa in ay wax badan ka qaban doonto ujeedada inaynu u fikirno maanta un maahe ubadka aynu dhali doono inaan raad muuqda iyo sunno fiican ay naga daydaan aynu abuurnaynu jecelahay. waynu u hambaleynaynaa wasaaradda si kaliya laaba hawsha ay qabatay ee wasiirku uu ku hogaaminayo in la keeno qalabka lagula soconayo hirarka noocyadooda iyo kala xadeyntooda iyo qiimeyn lagu sameeyo waxyeeladooda iyo waxtarkooda. waxaan aaminsanahay wax weyn baa inoo qabsoomay waa ilaahay fadhiyay. aad waxaan u soo dhaweynayaa barnaamijkan cusub iyo farsamadan cusub ee wasaaraddu ay inoo soo bandhigtay. ganacsigeena iyo dawladnimadeena way kala kortay. ganacsigeenu aad buu u xoog weynaaday heer wuxuu gaaray aan la maamuli karin xaggii la regulate garay karin. qalab aynu baahi weyn u qabnay buu ahaa waayo dal ahaan horumarkeenu waxa xiriirtoosa la leeyahay horumarka aynu ka sameynay technology-ga dhan walba. runtii tiknoolajiyaddu xagga caafimaadkana way ka qayb qaadataayoo dee anaga social distancekii halkaa ka galnay. qalabkan maanta aynu daahfuraynaa waa qalab muhiimad gaar ah oo qaranka. waa ilaahay xamdigii oo aynu maanta marayno inaynu kala xigno hirarka isgaarsiinta ee cirka ama hawada. dhinacoodana mas'uuliyiin ka socday shirkadaha dhinaca isgaarsiinta ayaa iyaguna waxay soo dhaweeyeen qalabkan ay wasaaradda isgaarsiintu keentay dalka. xasan galayd wararkoonka Hargeysa. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaanu hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday. fikir hadal oo hadalin
maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bisha oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.